waxaan rabaa inaan halkan laba kelmad ka iraado shaqaaqadii xalay ka dhacday deegaanka Bariire ee degmada Awdheegle. runtii deegaanka Bariire ee degmada Awdheegle xalay waxaa ka dhacay shaqaaqo aad iyo aad u culus oo aan xanuunkeeda la wadaagayno dadka ku dhaqan deegaan weynaha Bariire. arrintan waxay ahayd arrin runtii soo noqnoqotay muddo badanna ka dhacday deegaankan, oo runtii maanta waxaa inagu kalifay inaan media hornimaano aan ka hadalno xanuunkii xalay dhacay oo ahaa mid aan ka seexan weynay oo aan shacabka ku dhaqan deegaanka aan la wadaagayno ee dadkii dhibaatada gaartay. runtii xalay waxaa dhacday qolyaha ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya, ciidamada ATMIS ayaa waxay hoowiye ku garaaceen deegaankan oo ah mid hadda aan wax cadowa joogin, la xoreeyay mar hore. ciidamada SNA gacanta ay ku hayaan, qayb ka midana ay joogaan ciidamada ATMIS. ma garan karno sabab ay ku dhici karto in haween walba dad shacab ah oo masaakiin ah hoowiye lagu duqeeyo iyadoo meeshii targetka uu ahaa aan ahayn, oo meeshan meel aan ahayn meel hoowiye laga riday, ama maxaan ku iraahdaa dad qolyo cadow oo nabadiida meesha ka baxay aan la dhehaynin. deegaankan Bariire waxaa ku hareeraysan ciidamada SNA ayaa afarta koore ka joogaan, shacabka ayagii ayaa maaragtay oo ku jira, haddana waxaa loogu sii darayaa maaragtay in hoowiye lagu soo garaa. ma garan karna marka sababteedii. darawalka gaariga wadaaya markii uu gaariga rabo inuu kaxeeyo wuxuu soo qaataa tababarkaasoo muddo soo qaadanayso gaariga sidii loo kaxeeyay. sababta loo baraayana waxa weeyaan inuu maaragtay una ka leexanin wadada, ummadana dhibaataynin, isagana isdhibaataynin. marka nin maaragtay madaafiic gacanta ku haaya ma garan karo waa qaldamay ama maaragtay cabirkaa gaabtay iyo cabirkaa dheeraaday, yani ma fahmi karna annaga. laakiin waxaan aragnaa in ay tahay arrintan arrin ku talagal ah, loogu talagalay in shacabka lagu dhibaateeyo. maalmahan ciidamada ATMIS problemkii ay ku hayeen shacabkan ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose si goos ah uu noo damqinayay, aad buu noo dhibayay. haba ugu badnaatay tii xalay iyaga ay sameeyeen. waxaan rabnaa dadkan kusoo dhaawacmay iyo kuwa dhintay ee deegaankan Bariire ay dhibaatada u geysteen ciidamada ATMIS in ay si degdeg ah jawaab ugu soo bixiyaan shacabkan ay dhibaateeyeen. dhibaatadii ayaga ay geysteen ayagay u taallaa, ayagaa laga rabaa inay shacabkii ay dhaawaceen iyo kuwii dhintayba magtoodii iyo kuwii dhaawacmay inay bixiyaan. waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha ay qusayso shaqadooduna ay tahay shacabkan u dhaartay mas-uuliyadda u qaaday inay arrinkan ay u istaagaan, ayna maaragtay ay u kabagashadaan sidii ay xal waara ugu keeni lahaayeen arrinkan. khaasatan waxaan ka rabnaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya inay arrinkan u istaagto. dadkan maatida ah ee la laayay sidii gardarada sharci darrada ah loo dhibaateeyay inay garabkooda istaagto, xuquuqdooda inay usoo dhiciso. annaga haddii aan nahay siyaasiyiintii mas-uuliyiintii kasoo jeeday degmadan kama seexanayno, kamana fadhiisanayno ilaa aan ka helno xuquuqda ay leeyihiin dadkan insha allahu tacaala. waxaan rabnaa inaan baaq u jeediyo oo aan maaragtay si gaar ah dowladda federaalka Soomaaliya, especially wasaaradda gaashaandhigga oo shaqadeedu ay tahay in shacabkan muwaadiniinta Soomaaliyeed la dhibaateeyay inay u istaagaan, iyagana ay maaragtay ay doorkoodii qaataan. waxaan kaloo rabaa madaxda ugu sarreysa howlgalka ATMIS inaan baaq u dirno. runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay waxyaalaha dhacayaan oo ay geysanayaan ciidamadooda ATMIS. ma rabno problemyada ay nagu hayaan ciidanka ATMIS maanta oo dhan inaan soo tirino. ha ugu darnaato meet waxaa la yidhi maxaa ugu dambeeyey, meet waxaa la yidhi kii hadda ugu dambeeyey ayaa ah. marka annaga waxaan rabnaa dhibaatada ugu culus ay ATMIS ay ku hayaan dadka ku dhaqan gobolkan Shabeellaha Hoose inay il gaara ay ku fiiriyaan madaxda ugu sarreysa ee ciidankooda ku howlgala ee magaca ATMIS ee jooga dalka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan sidoo kale aan baaq u diriyo shacabka ku dhaqan deegaanka Bariire in ay isdejiyaan insha allahu tacaala. xuquuqdii ay lahaayeen muwaadiniintan la dhibaateeyey hadduu ilaahay raali ka noqdo
waxaa u istaagaysa dowladda koonfur galbeed Soomaaliya insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay arrinkan aan iska garabsano wasaaradihii ay quseeyeen iyo annagoo ah mas'uuliyiintii metelay deegaankaas in xuquuqda ay leeyihiin dadkan la dhibaateeyay la heli doono sidoo ugu dhaqsiyaha badan insha Allahu tacaala madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya runtii aad iyo aad ugu xun yahay wixii gaaray shacabkan ku dhaqan deegaanka Bariire waana la wadaagnay aad iyo aad ula damqanayaa hadduu ilaahay raali ka noqdo insha Allahu tacaala dowladana waxay ka soo saari doontaa iyadana warbay ka soo saari doontaa gaar ahaan wasaaradda haweenka sida aan isku ognahay insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa in madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyo kuwa ka howlgala magaca ADMIS ayagana inay kaalinkoodii qaataan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinayaa intii dhimatay ilaahay u naxariiso intii dhaawacantayna ilaahay ha u bogadhaayo insha Allahu tacaala shacabka ku dhaqan reer Bariire waxaan rajaynayaa arrintan oo maanta qabsatay inaanay ku soo noqnoqonin haddii ilaahay raali ka noqdo oo mar kale aanay dhicin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ayaa wax walba ku mahadsan oo qadartiisii waa rumaysanahay laakiin waxaan ku dadaali doonaa insha Allahu tacaala hawshaan hadda dhacday inaanay nagu soo noqonin mar kale sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada SNA ee ka howlgala deegaanka Bariire oo runtii iyagana muujiyay dadaal weyn oo maaragtay gurmad degdega u sameeyay shacabkii waxyeelada soo gaartay ee dhibaatada ku dhacday waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri xasanaad ha idinka siiyo waajibkii idin saarnaa ayaad gudateen insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhibaatooyinka noocan oo kale ah inay soo noqnoqonin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ciidamada ka howlgala deegaanka